idinka iyo ahlu sunno in muddo isku dhaganaydeen oo maamulkiina dhanna dawladda federaalka Soomaaliya tabashaad ka muujinayseen dawladdu way idinku baxday dhan bay kula heshiis adiga oo walaayadii waad ku wareejisay waxa dambe ma ahan markii ugu horeyso oo aad leedahay dawladda federaalka Soomaaliya waan kala laabtay walaayada markii labaad maxaa soo celinaya arintan marka aan kala laabashadii hore weeyimada ku taaganaya ma aha markii hore ma aanan hirgelin sababtoo waxay ahayd inaan waxaan diidaayay in meesha conflict iyo dhibaato ka dhacdo ma aanan rabin aniga wax dhismaan baan doonay laakiin sida ku socdaan ay ku dhismayaan waayo madaxtooyada aad ku shaqeynayso waxay ku taalaa magaalada Dhuusamareeb hadda waxaad ku sugan tahay magaalada Gaalkacyo maxaadan u tagin magaaladii aad ku shaqeynaysay oo caasimadda Galmudug oo go'aankan aad kaga dhawaaqday Gaalkacyo aadan uga sheegin Dhuusamareeb waa xaaladdeeda maanta Galmudugna Gaalkacyo lagu aasaasay Gaalkacyo joogaan waana isku mid Dhuusamareeb bariisaad loo tagi kara laakiin aniga waxaan maaragtay aan ka cusubeysanaya waxaan doonayaa meesha ma rabo in kultus ay noqoto ama dagaal iyo dhibaato meesha ka dhacdo ma rabo waxaan doonayaa waxayga in cadayso ilaa ay dawladda federaalka faraha kala baxdo Dhuusamareeb oo ay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka dadban oo arrimaha gudaha ilaa ay ka tagaan meesha oo ay baneeyaan haddii kale conflict ay noqonaysaa meesha isku xaganayna mana doonaysaa way hadda dawladda federaalka Soomaaliya dhismaha maamulka gabagaba buu yahay qaar ka mid ah xildhibaanadii waa lagu dhawaaqay oo qaybtii ahlu sunna dadaalo kala socdo ra'iisul wasaariyaha ku sugan maxaadan u tagin magaaladii oo iyagu aadan ula kulmeen dheen war sidan wax ku socon maayaan xal kala keena inta aad Gaalkacyo ka hadleed dhageyso aniga Gaalkacyo ka hadlaya waana kula hadlay waraysiga fulin fadlaka وايه taas waxa weeye waa su'aal looga baahne waxa weeye aanu Soomaaliya waxa weeye bariisaada mid aan doonatay kara waa gartay ayaa markay bilaato laakiin hadda hadalkayga waxaan ka codsanayaa go'aan qaribin barigii dawladdu ama gaar ahaan ra'iisul wasaarigu taga magaalada Dhuusamareeb waa wada kulanteen oo waxaad ku kulanteen cadaado dabcan waxa jir in isfaham adiga iyo ra'iisul wasaaraha ama xukuumaddiisaba aad la gashay Muqdisho joogtay ma la oran kara waxa jir heshiis hoose iyo arimo kale oo ay ku heshiiyeen dawladda iyo madaxweynaha taana looga baxay madaxweynuhu kadibna uu soo rogaal celiyay oo go'aanadii hore uu ka baxay adiga dhageyso warfaafintii adiga yaa sameeyay khayr akhriso 22 bishii hore waxa 22 midkood akhriso waxay ahayd in annaga daadihino oo dhisno dawlad goboleedka wada federaalka ay ku joogtay wixii nasarka sanadka ayaga ka baxay waa gartay ma jira in heshiis hoose aad gasheen wax heshiis aan galo kala ma jirto inta baan ku heshiinay aniga maadaama ay khilaafaad nagad annaga iyo nagad xiriir ahlu sunna marka uu dhiibaya arrinta waxay annaga ahlu sunna u horeeyay heshiisiya marka ka bacda wax dhisano dawladdu ka baxeen ayaga la tooyay wadibeen waqtiga caadiga ah ee doorashada ama waqtigii xil madaxeedka madaxweynimada waa uu dhamaaday oo waxa tahay madaxweyne waqtigiisu dhamaaday laakiin ay xaq ka saaran tahay in doorasho uu ilaamiyo oo doorasho u daadiyo dawladdu kaalin ay ku leedahay kaalin dawladda maxaad ku diidan tahay dhageyso adiga saaran noocaas ay weydiinayna waxaan ka rabaa horta aniga maalintii la doortay waxay ahayd 3 May bay ahayd waa gartay ma garat 3 May afar sano inta xisaabisay dastuurka la akhrisid in waqtiga dhacay in kala bar markii lagu doortay waxaad dhameystiraysay muddo-xileedka kaga dhigna Cabdikariin Xuseen Guule yaa ku sheegay waxa adiga khulaafaadka yaa ku sheegay dastuurka Galmudug buu ku qornaa ma ku qornaa xashaanillah akhri waa la weligaay inta aydan midoobin ahlu sunno dastuurka waa ma santahay waqtiga joojiya waa ku soo gabagabeynaya qaybta dambe wareysiga soo gaarnay hadda dhismaha Galmudug maxaad xal u aragtaa Galmudug ana tagay annaga iyo ahlu sunnada iyo walaashay aqoonyahanada waxay dhacday dhisayna iyo wasiirada annaga dhisayna dawladda federaalka farahay naga baxay doonay ahlu sunna har cad baad kala tagteen xagad isugu imaanaysan adiga yaa kuwii wata horiyaada yeesho adiga adiga adar waqti iska dhaafiyay go warkaan fadlan